xildhibaanada fikirkooda iyo aragtidooda waxay ku matalayaan shacabkii soo doortay maadaama fikirkaaga iyo aragtidaada aad ku matalaysid shacabka ku soo doortay waxaa laga yaabaa shacabka Soomaaliyeed maanta inay dhibano u yihiin argagixisada al-shabaab waxaa laga yaabaa nin aabihii ku dhintay hooyadii ku dhimatay walaashii ku dhintay gabadhii yareed la dhalatay ku dhimatay oo adigu aad matashid halkaan ku matashid codkiisa aad ku hadlaysid oo adigu aad xildhibaan u tahay haddii uu dhegaysto in adigii oo xildhibaan ah aad leedahay garsoorkii al-shabaab iyo kan dowladda garsoorka al-shabaaba wanaagsan markaad tiraahdo waxay la tahay arrin qabata ma aha ninkaasi argagixisada victimku ah waxaana codsanaynaa markaa xildhibaanada in ay iska ilaaliyaan bulshadu way idin daawanaysaa way idin dhegaysanaysaa waana loogu talagalay baarlamaanada markay doodayaan in bulshada ay dhegaysato waxaa laga doodayo ilaan ayagaan masalnaayo shalayto halkan dowlo badan baa ka dhacay runtii aad iyo aad waxay ahaayeen kuwo adag oo muwaadinka wanaagsan oo filayey wax wanaagsan filayey iyo askarigii shaqaynayada iyo jafka cadowgana dhiiri gelinayey oo laga dhigay in muxuu ahaa awooddiiba dadkii cadowga Soomaali ku ahaayo wax diinayey in awooddii iyo taladiga la siiyey marka taasi ma ahayn mid aynu ku tala bixinaynay ama aynu amni ahaan si xaqiiqi u hadlaynay marka arrintaas arrin laga wanaagsan yahay ahayd haddana waxaa fiican gabagabadeedu inay noqoto wax dana oo aan ku salaysnayn hebel hadda wararkii waxay u bateen kuwa badan baa ka hadlay nin walba gunaanadkiisa ra-iisul wasaaruhu ha yimaado hadma ra-isul wasaaraan ka hadlaynaa mise amni baan ka hadlaynaa amni baan ka hadlaynaa amniga waxaan kaga kala bixin karno oo dalkeenna oo dalka anfacaya oo muxuu ahaa innaga ina ka gudbi kara oo ciday u gudbaaniin lagu toosin karo warkeenu inuu noqdaa fiican run weeye dalkeenu meelo badan buu ka yimid yani wax haddee maanta aynu ka hadalno oo awoodeenna innagu aynu ilaa xad aynu oran karno waxbaan ka qaban karnaa way jiraan waxayna ka baaxad weyn oo dalkeenu ku sugan yahay oo adag oo aan maanta cid dooniya oon lagu saari karin baa jira kulligeen mas-uuliyadda amnigu qof walba way saaran tahay marka laga soo tago hay-adaha ku shaqada leh oo u calaamadsan qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliya way saaran tahay marka innaga midayna kaga aadan waxa weeye iyadoo aan lahayn muxuu ahaa haddii ilaahay dantay aragtiyo kala duwan oo aynu ku kala duwan nahay aragti saxa oo aynu miisaanay oo aragti amniya oo aynu ku tala bixin karno oo ina ka gaari karna hay-adaha fulinta marka haddeer xaqiiqda marka laga hadlo waa dhici kadhaa wax badan oo tabardarhaahi waa jiraan wax badan oo la qabanayana waa jiraan waxaa marka waxaynu ku buuxin karnaa waxa aynu tagayno hadday amni tahay waxaynu ku buuxin karnaa si cilmiyeysan oo guddigii iyo dadka kale aqoonta u leh oo baarlamaanka ku jira aynu ku kabi karno in magaranaysaa oo tale amni ayna ka gudubto anigu sidaasaan oran lahaa warbaahintaani halkan iyadoo wax kasta lagu hadlayo anigu hadda cid lala hadlayo la garanayo war la dirayo oo meel loo dirayo aana garanayn weeye aada u moodo in loogu tanaadoonayo shabaabka iyo inta dalka wax ka biinaysa oo la leeyahay halkaa iyo halkaasaa gondoloolooyinka iyagu yihiin oo aanu ka liidanaayo halkaas iyo halkaa u fiirsada hadday tahay talo dhaba oo talo amniya oo xaqiiqa oo naftaada u kale ah hadday tahay aynu mid ka qabow oo xaqiiqu dhaqana aynu muxuu ahaa ku tala bixino hay-adaha hayna ka gaareen aan kula xisaabtanno aan ka daba tagno go-aanna haynoo noqoto laakiin sidaas kan hadde ajantahaan oo dhan baa wuxuu yahay ajanto weji kalaya qodobo kale aynoo horiyaa dhexduu ka soo galay warkiisuna meelo kale uu socdaa
warka meesha kale u socdayna ka daayo amniga haddaan ka hadlayno amniga xaqiiqaani mu ihtaano asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu